السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارته كسر دواذا كيستا تي في برنامج كينا مانتا وحان ربنا إنان كيغا فايدي سنو إن آن غاشانكا ودرورنو هذا اللو كتريكوتين oo la isla dhex maraayo oo ku saabsan garaadada iyo isimada maamulka SSC qaatumo dad fara badan ayaa waxay isla wadaagayaan warar aan waxba ka jirin oo kutrikuteena kuwaas oo ku saabsan in uu jiro khilaaf soo kala dhaxgalay garaadada maamulka SSC qaatumo arrinka isaga ah wax ka jira ma leh wax iskhilaafsan ma jiro warqadii shalay ay soo saareenna garaadada warqad ay isla arkeen isla ogaayeen isla ableeyay oo isla wada indheeyay weeye waxa ka jira male warkan dhahayo khilaaf ayaa soo kala dhaxgalay maadaama garaad jaamac garaad cali garaadka guud maamulka SSC maalinkii dhaweyto uu xoogaa yara canaantay dowladdiisa sidii aan horay u ogeynba ay soo saareen garaadada in ay muqdisho toos u hoos tagaan dowladda federaalka ana ay ka mid yihiin faraska waxaa usha loogu dhuftaa inuu kasii dheereeyo marka garaadada garaad jaamac garaad cali wuxuu canaananayay oo uu rabay inay kasii dheereyso dowladdii federaalka ahayd oo uu ka tirsanaa oo uu hoos tagaayay oo uu ka yara dareemay in ay xoogaa habacsanaan ay ku jirto marka wax gooniya ma jirin waxaana noo caddaynayo in wax khilaafa uusan jirin dhexdooda soo kala dhexgalay garaad cabdisalaan oo isaga noo sheegi doona afkiisana noogu qiraayo in aysan jirin wax khilaaf ah oo ka dhexeeya garaadada SSC iyo guud ahaanba 33 مسؤولك كا مامولك SSC هدر وعكلا أوجراتك وعدي إن أي جيران إن وصوص عضو إن شاء الله تعالى أفرتن إيشنتي برلمان هانتا لورد سي أو لقول واقع دونه مركا أي أسوي مادان جرادة بل جراتك أو عدينا أيو إن وحكلافة وسنجرين ورقدنا أي وضع أركان جرادة أودن أن يرى دهنا وحير كسر جراد قدم ضمان المريان kaas wuxuu ahaa garaadka oo cadeynayay in wax khilaafa uusan jirin warqadda ay wada arkeen isha la soo wada mariyay la isku soo wada raacay in warqadan waqtigan ay ku haboon tahay in la sii daayo dowladda federaalka ana raaligelin la siiyo sidoo kale garaadkan waxa uu ka hadlay arrinka dhahayo annaga waxaan leenahay hal cadow oo ah cadowga ka soo duulay Hargeysa oo maamulka Somaliland ah cadowgaas maan leenahay cadow kale ma lihin mana rabno inaan cadaawad kale abuurano markii arrinkii la ableeyay la isla fiiriyay waxaa la gartay in dowladda federaalka ah aan la coleysan oo laga dhigto saaxiib dhow maadaama in the end al ultimo ayada la hoos tagi doono oo maamulka la hoos tagaayo maamulka la soo dhisaayo qaatumo ama SSC qaatumo la hoos keeni doono dowladda federaalka ah aqoonsina looga rabo marka in aan xamar iyo meel kale iyo garowe toonna aan cadaawad laga samaysan laakiin dadka si isku mid ah loola shaqeeyo inta aan ka ahayn maamulka ka soo duulay Hargeysa oo raba in uu meeshaas xoog ku qabsado dhul uusan lahaynna ka dagaalamayo so garaadka mar labaad waxa uu noo cadeynayaa arrinkaas in cadowga kaliya oo ay maanta SSC qaatumo leeyihiin oo xabadda ay ku ridayaan ama ay la dagaalamayaan ama hiilka ay u raadsanayaan uu yahay maamulkaas Hargeysa ka soo duulay laakiin dowladda federaalka ah iyo maamulka ka jira Muqdisho
oo dadka dhanba u dhaxeeya iyo madaxweynaha xasan sheekh maxamuud iyo xukuumadda xamseba aysan u ahayn cidna cadow iyagana ma rabaan inay ka samaystaan bal garaadka oo mar kale aan ku soo celiyo inaan waddankayaga ka sifayno oo jacalka ka saarno dalkayaga ka kaxayno meesha ka yimaadeen ka sifayayaan maadaama dalaada ku jirno dib kale oo ma rabno sidaad ogtihiin bixii february waxaan soo saarnay inaan dowladda federaalka aan hoos tagno oo aan maxalliga ka madaxbanaan tahay meelaha kale arrinta caynkaa ahayd baan weli taaganahay garaadka wuxuu sheegay in February 6 ay soo saareen in meelaha kale oo dhan ay ka madax bannaan yihiin hadday ahaan lahayd Hargeysa hadday ahaan lahayd Garowe iyo hadday ahaan lahayd meelihii kale oo isku haystay maamulka SSC Sool Sanaag iyo Cayn waxa ay sheegeen in ay toos Muqdisho u hoos tagayaan marka meeshii ay tooska u hoos tagayeen oo sida uu sheegay dhaawac fara badan uu ka yaalo oo lagu daaweynayo waxa ay go'aansadeen in aysan cadaawad u muujin colna ay ka samaysan waa sida garaadka uu hadalka u dhigay cid kale oo aan la dagaalsanahayna ma jirto ayuu yiri kaliya waxaan la dagaalsanahay Muuse Biixi iyo maamulka SNM Somaliland ka soo duulay oo raba dhul aysan lahayn inay xoog ku haystaan dadkana ay caburiyaan maamulna aysan noqon SSC so intaas ayuu sheegay garaadka dhinka uu ka faa'iideysanayo cadawga faraha badan social media wareegayo oo leh maamulkii ugu sareeyay isimada SSC waxa soo kala dhaxgalay khilaaf wax la yiraahdo oo jiro ma leh waxaana idin cadeeyay garaad Cabdi Salaan oo isagu ku saxiixnaa warqadii shalay soo baxday wuxuuna uu noo cadeeyay in warqadan warqad mutafaq ah oo la isku raacsan yahay ay ahayd aysan ahayn warqad habow ah oo cid ay iska soo saaratay dadka kalena aan laga wargelin sidoo kale videogaas wuxuu ku sheegay in aan 45 qof oo xilka kala wareegi lahayd garaadada iyo isimada hadda sii haya maamulka kumeel gaarka ah iyagana marka ay ka soo laabtaan garaad jaamac garaad cali iyo garaadada kale iyo isimada la socdaba ka soo laabtaan Nairobi iyo howlahan ay hadda ku jiraan oo shaqada ah la soo lagu dhawaaqi doono garaadadana markaas backseat ay qaadan doonaan la dooran doono gudoomiye iyo dad dawlad ahaan u sii maamula SSC inta madaxweyne caadi laga dooranayo inta ayaan rabay inaan ku biirsado maanta iyo hadalkaas ku tiri kuteenta ah waad mahadsantihiin inaad la daawataan videoga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh